allamaanta ayaanta iyo iidda wanaagsan ilaaheena siiyey isagaa ku abaale ilaaheena siiyey isagaa ku abaale السلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته داوديال waxaad ku soo dhawaataan barnaamij gaar ah oo aan ugu dabaaldegayno maalmaha Ciidul Fidriga si aan ugu la caawino walaalaheena muddada 30 bari ah soo soomnay TV-ga qaranka iyo warbaahinta dawladda dhamaanteed ayaad ka daawan doontaan barnaamijkan waxaana madasha joogto ama ka qayb gali doonto barnaamijkan gaarka ah ee aan ugu dabaaldegayno Ciidul Fidriga fanaaniin mug iyo miisaan ku leh magaalada Muqdisho sidoo kale waa fanaaniintii tiir dhaxaad iyo udub dhaxaad u ahayd fanka Soomaaliyeed maslax ayaad ka arki doontaan oo telefishinka qaranka Soomaaliyeed ayaad ka daawan doontaan balse garabkayga midig waxaa jooga Maxamed Nuur Shariifka walaalkay oo ila daadihin doona barnaamijka inta uu socdo waana munaasabada Ciidul Fidriga ee ugu dabaaldegayno dadkii 30 bari soona adil ku dhaad ciid wanaagsan oo kale ciid wanaagsan xamdi haye fanaaniinta halkaan noogu madal ah ana sheegay mug iyo miisaanba inay geeska Afrika dhan ku leeyihiin markii Muqdisho xataa laga tago bal noo tiri anna aan soo qabtay waa tahay halkan waxaa ku sugan fanaaniinta hobolada Waaberi iyo waliba agaasimayaashooda mid u sheegi doono ugu horeyn aan ku bilaabo fanaanka da'da yar Qadar Kayo sidoo kale anna kaamiliitay waxaan soo qabanayaa Maxamed Xuseen Lafoole شرعه أي أسجنا ماشى كم غنين. دنكي قبلها أنا هذا يا هي عاشقين علمي حاش. سعيد داود علي مسعف. ولي قبله أنا هي لنا يا فرحي حلا. نصر بشرح أيضا هكتجن. هذه سعيد داود انصفت. لما كلا رأي كله. فرحي حلا أي أيضا هلكن كسجن. سيدا كلا عبد الرحمن وأخلاق أي أنا صخت. آذن محمد عيسى أصلاً هالكن أيو كسوجيه أو برنامج كأيو كقيب قادنا يا كل مرتدى وإذا ما تسيدان في ليا قفوا مهارين فنانين تاس يكوا كله هذه نقص بيرامبو أيام قبلنا لكن كي ما دخلين وقرنا هي حمد هذا الشيء أنا أقول لك برنامج كان يسوع أبابولي بلنوشة معمول كهالكن جوجا يسوع أبابولي أبابول كوجو رأي برنامج كان وح الشرف كان كدم بسينة هالكن اسكوجي ما دام روح ذا بدن فنانين تنا أركسان والله بدأ أجاسمي محمد وردي يصير كلام محمد حسن برو أو كواحد وابري يجون كتير ككواد اللجو استعجوا سيدا كلام عن هذا علينا يا قدومية كواحد وابري سلاد عبد الله أو يجون قيب كأ صارياش هوين كان عابة داودياش عن أقول بالدقينه إن برامج كان إنه قبصنا إسماعيل مختار أورنجا يا سجنه كمدة واسمع ومرك أقول فريسي أو برامج عيد الفطر يستغنى كل دبالدقة داودياش واتا حمدي أدو محسن أدي فنانينتي عن حسني أدنا مامولكي عن حسني بل مستكيستا محلوغ شيء كرتا waxaan soo qabanayaa dhanka bayska Umar Bakari okay organ-kana waxa inoo garaaci doona Abu Karyare abshir oo boondaha bateriga iyo qubqacda halkan ka yeerayso iyo waliba qarbiyada waa tahay markana furitaanka ayaa la soo gaaray heestii furitaanka Maxamed Xuseen Lafoole sida loo kala horeeyo fankana loo kala marti culus yahay ayaa nooga marka ayaa ugu horeysiinayna Lafoole soo dhawo maslax ku soo dhawo intaan ku bilaabno waxa sidoo kale madasha nagula sugan Khaliif Axmed Cilmi oo isaguna fanaaniinta kamid ah oo mustiqiista لكن هي سعيدين كفرنا ما دام عيد عيد ونكسر أي مزاود ياشنا الله ما أنت أيام تفنانين تقود جري
siiyey isaga ku abaale ilaahi ina siiyey isaga ku abaale calankeena iftiimay xidigta kuwastaysan ilaahina siiyey isaga ku abaale ilaahina siiyey isaga ku abaale iskuulka odayaal talinaya arday joogta iskuulka odayaal talinaya ilaahay ina siiyey isaga ku abaali ilaahay ina siiyey isaga ku abaali way ahaataya maanta si wanaagsan wiciida way ahaataya maanta cid wanaagsan wiciida ahaataya maanta si wanaagsan dhanka fanaaniintan aadayaa fanaanka ugu horeeya aan soo qabanayo waa maxamed xasan xuseen lafole ciid wanaagsan soo dhawow fanaan ciid wanaagsan waa dhawaay sidoo kale heestan noogu talagasha annaga iyo daawadayaasha waxaa la yidhaahdaa adaa dadnimo heeskaas ugu talagasha soo maaha daawadayaasha yaana warka idinku badinin heesta uu qaadayo maxamed xasan xuseen lafoole iyo daawasho dhan ciid wanaagsan kullu caam wa antum bikhayr
mandeqaali baate qaadirkay ku magangeli anku qeyro sifee qofba igala weynide maxaan kugu qiyaasa uman kugu iraada mandeqaali baate qaadirkay ku magangeli dareenka qasbaaye qadarin iyo karaamadu waa midaadu qalanto qayrka ku dhaaftay ammantaado qiro mankaygii ku qaatiyo dareenka qasbaaye qadarin iyo karaamadu waa midaadu qalantood qayrka ku dhaaftay qoton baxay la moodiyey qayahaaga sharafay naftayda ku qanacdo naftayda ku qanacday qoton baxay la moodiyey qayahaaga sharafay naftayda ku qanacdo naftayda ku qanacday markaan qoys wadagnaan degi rays qabowlo qalbigii ladnaade qurashtii haweenkay rajadeen waa qayr rajadeen waa qayr markaan qoys wadagnaan degi rays qabowo qalbigii ladnaade qurashtii haweenkay rajadaydu waa qayr rajadeen waa qayr anku qeyro sifee qofba igala weynide maxaan kugu qiyaasa uman kugu iraada mandeqaali baate qaadirkay ku nabadgeli anku qeyro sifee qofba igala weynide maxaan kugu qiyaasa uman kugu iraada mandeqaali baate qaadirkay ku magangeli mahadsan yahay maxamed xasan xuseen lafoole oo nugula dabaaldegaya heeskiisa kolowee cusbeed ee barnaamijka ayuuna ku daafuray ee ciidulfidriga ciid wanaagsan daawadayaal meel kastoo aad joogtaan waxaan ku jirnaa qaybihii hore ee barnaamijka ciidulfidriga maxamed nuur shariif dheeraad xamdi waan kula joogaa horta ciid wanaagsan ciid wanaagsanaa ku leeyahay ciido badan kole waa si wanaagsan haddana wax badan ayaa inoo dhiman hadduu ilaahay noo haye xaafadihii iyo magaalada haddaa soo martay iyo sida looga ciidayo bal wax yar dhammaan waa la wada ciiday ilaahay ha barakeeyo ummadda soomaaliyeed caafimaad iyo cimri dheer ay ku sii ciidaan ilaaha ha siiyo dhankii kaalimaha suugaantana fari kama qadno kolley barnaamijka fanaaniin badan ayaa ku madalsan oo goobtana la joogta anagoo u mahad celinayna markasta hoolka guryarsame maamulkooda dhammaan guryarsame maamulkooda oo idil oo qayb libaax leh ka qaatay barnaamijkan qabsoomistiisa ama in barnaamijkan uu hirgalo dhanka fanaaniintaynu aadaynaah dhankaaga mid ayaan u soo qabanaynaa markana dhinacii ragga la fool ayaa inoo soo qabatay
markana caashakiin cilmi xaashi ayaa iyadana soo qabanaynaa ee heystii markaas ay ugu tala gashay ciida caashakiina soo dhaweynaynaa caasho marka hore waa ciid wanaagsan ciidul caafiya haya caasho xaafadii ayaa ka timid iyo magaalada iyo caruurtii iyo sida loo ciiday bal ka waran wallaahi si qurux badan oo loo ciiday aad ayaa loo xalwaystay hilib arigana kaba sii daran caruurtii iyo dharkii quruxda badnaa iyo ka waran meel walbo nashaad iyo quruxda waa yaabaysaa waddo kastoo aad marto waa tahay ciid wanaagsan marka waxaa jirta hees noogu tala gashay heestaasi halkudhigeeda muxuu ahaa hees la yidhahdaa degdeg iigu soo noqo ayaan rabaa caawo inaan halkan ka qaado erayadeedana waxaa iska leh ugaas cabdiqaadir jaylaani oo isagana bombaaso jooga waxaan leeyahay ciid wanaagsan laxanku waa cabdi heelo muusiguna waa bashiir hanuuniye aad ayaad u mahadsan tahay daawadayaal ku soo dhowaada caashakiin cilmi xaashi iyo heestii ay ugu tala gashay ciidda joogtiyo burjigiyo garaadka booliyo
bariga joogtiyo burjigiyo garaadka booliyo igeliyo bashi anigana raginaad tahay boqor ayaan beensanayno bashi anigana raginaad tahay boqor ayaan beensanayno waynu kala baadiyowne indhaha isu basaasiyo qalbiyada isu basaylay boholyow hadaaye badqab igu soo noqo waynu kala baadiyowne indhaha isu basaasiyo qalbiyada isu busaylay boholyow hadaaye badqab igu soo noqo waa tahay dhankii fanaaniinta ku soconaynaa ciid wanaagsan kullu caam wa antum bikhayr daawadayaal waxaan idinku soo dhaweynaynaa barnaamij aynu ugu dabaaldegayno maalinta ciidulfidriga weliba maalmaha ciidulfidriga aan idinkula ciidsanayno barnaamijkan diyaarintiisa iyo isku dubaridkiisa dhammaan waxaa uga mahadceliyey dadkii hore aan u soo sheego ugu horeeya agaasimo ku-xigeenka TV-ga ahna sifaftiraha guud ee TV-ga qaranka Ismaaciil Mukhtaar Cumar Oronje iyo Maxamed Xasan Barro iyo Maxamed Wardi balse dhankii fanaaniinteenu aadayna heesaha kolay kalama liitaan laakiin waxaan soo qabanayaa qadar Kenyo aan jeclaan lahay maslaxa inuu soo koro si heesta barnaamijka uga qayb qaadan lahay ugu horreyn waxaan salaamayaa xamdi adiga naftirkaaga ciid wanaagsan aan ku leeyahay ciid wanaagsan marka xigtaa bahda TV-ga SNTV salaama iyo shacabkana daawanaya ciid wanaagsan aan leeyahay sidoo kale halkan ilaahay ka sugow waxa ay keenay barow oo asaga fadhiya agaasimaha gobolada Waaberi iyo Maxamed Wardi injineer Wardi sidoo kale gudoomiyahaasna oo jooga dhammaan qaada saxaafadda iyo gudoomiyaasha salaamaya waxa hadal isku fiicnaa aniga heesaan ku dhunahay fanaaniintii weynaan waa joogaan muusishinadii iyo raggii aan islahay ku dayama wadadooda raax inaan caawa ag joogo oo aan ka muuqanayo ayagana farxada ii tahay muusishinadii waaweyn waa idin jeclaa marka sida insha Allah heesta laakiin anaga daawadayaashina noo sheegtid heestii horaa la foolo u yiri adaa iyo tolo foolo anna waxaan iri adaa qurux iyo wanaag adaa qurux iyo marka aabahan dabaraaca weliga waa taageeri jiray haddana isagaan dabaraaca insha Allah daawadayaal daawasho wacan qadar Kenyo iyo heestiisa weliba way cusub tahay Soomaan qadar waa cusub tahay waxaan ugu talagalay xaaskeyga ugu talagalay marka special ayada u tahay laakiin magaceedu kuma jiro daawasho wacan ciid wanaagsan qadar iyo daawadayaasha markaan isaga dhex bixino hamigayga sare huba
adaa garashiyo hufnan adaa habsamiyo garaa adaa hadalsaniya xisho heelayo ijiitay adaa garashiyo hufnan adaa habsamiyo garaa adaa hadalsaniya xisho heelayo ijiitay adaa haga oo qalbiga hoy ku ahaado adaan hil iyo hoo haweenkaaga doortee adaan hil iyo hoo haweenkaaga doortee adaa haga oo qalbiga hoy ku ahaado adaa hil iyo hoo haweenkaaga doortee adaan hil iyo hoo haweenkaaga doortee adaan ku hiloobay hankay ku raacee kaalayo hamuuntiyo iga goy haraadko iga hile cashaqa iga hile cashaqa iga hil cash iga hile cashaqa adaan ku hiloobay hankii ku raacee kaalayo hamuuntiyo iga goy haraadko iga hile cashaqa iga hile cashaqa iga hoy hil cash iga hile cashaqa qadarow ciid wanaagsan oo kale yahay mar kale wanaagsan oo heesta xaaskaaga ugu talagashan oo filayaa inay gaartay iyo daawadayaasha laakiin ciidihii ciido oo idil ciido kugu farxad badna tana igu farxad badan si gaara because waxaan isleeyahay hobolladii fanka muqdisho aan hortaaganahay ammaankeesa Aad iyo marka ereyada waxaa iskale cumar baarqab muusigna mustaq karaama oo aad halkan aan ugu saaxiibkay iyo hobolladii kale oo ayagana tumaayaan hobolladii waa beri oo dhan joogo dhan marka dhammaan waa isxaba ciid wanaagsan laxankana laxanka kulli aniga iskuma tilmaami kareen la foolaan leeyahay booskiisa waa tahay aad u mahadsan tahay qadar iyo fadhiiso barnaamijkeeni ciida aynu u dabaaldegayno weliba qaybihii hore ee barnaamijka ciidulfidriga aan ugu dabaaldegaynay oo aan idinkugu talagalnay daawadayaal ayaan weli ku guda jirnaa maxamed shariifa barnaamijkii la wado maxamedow markaana ayaynu soo qabanaa waa nin aada wada garanaysaan oo hore aabbihiisa uu ahaa heesaa muusiisan uu ahaa asagana heesaa ah laxamiiste ah gobollada waa beri ka tirsan waa Saciid Daawud Cali Masxaf ayaan u yeerayaa waa tahay saciida soo dhaweynaa Saciid, soo dhawow. masraxana soo kor waa tahay Saciid marka hore ciid wanaagsan عيد وناكسن عيد مبارك كل عام أنتم بخير الله waa mahadsan tahay Saciid halkan waad u jeedaa fanaaniintii gobollada waa beri qaybahooda kala gedisan ayaa halkan jooga magaalada markaa maraysay ciidda bal ka waran quruxda والله الحمد لله عيد يا رحمتي قبوك الرب وحي دون يسيمدين سفي عن أيا لوجا عيد مقدسه مقالة تدك يا بجاج يا بابورتا وجنيسين waa tahay bal caawa heesta aad noo shay magaceeda marka hore heesu horta waa dumarka loo wada sameeyaa si wanaagsan markii qofka la jecel yahay loo sameeyna la yiraahdaa xaaskun bay noqonaysaa xaaskayga way joogtaa boqoradda kow iidanka bilaabaa ciid mubaarak aan leeyahay
ciid mubaarak heeskan aan soo wado waa hees cusub waxaa la yidhahdaa amal waa mahadsan tahay qadarkeyow ayaa noo bilaabay heesta xaaska waa naga bareejaysaye waa lagu qasban yahay erayadu waxaa iskale abwaan cabdi faarax nuur haye gareen oo saaxiibkayga ah oo baydhaba joog waxaan leeyahay baydhaba joogtaa ciid wanaagsan anagoo muqdisho joogna beedhawa jamaal musiga waxaa isagana tumay bashiir laxanka igaa iskale anaa sameeyey laxanka daawud ahaan siciid abshir boodhe iyo xarbi iyo abuukar iyo cumar bakaari iyagu kalama harno muuse sharadayna hobolada waa beri qaranka mar walba garabkeenna taagan dhabarkeenna taagan lafdhabarkeenna ah iyagana ciid mubaarak aan leeyahay soo dhawow shariif sidoo kale halkan waxaa inooga muuqdaa ninkii saxofonka tumaya qaliil isagana marba dhinac u ordaya barnaamijka qaban caawa muusiga wuu ka dhuuntay inuu iska dhig saxofonkii wuxuu yidhi abaabulkan ku jiraa marka meeshiisaan kullena waa mahadsantahay waa tahay daawadayaal ku soo dhowaada saciid daawud cali masxaf iyo heestii uu xafladda ugu talagalay soo iftiimiyo wejiyaha naftayday dugsi iyo dalaalay dayrka dhaxanta celiya dayax soo iftiimiyo wejiyaha naftayday dugsi iyo dalaalay dayrka dhaxanta celiya bimidan lahayniyo daalacan ayaad tahay hal door qaaliyaad tahay dan xariira baad tahay deeqaan laga dhargayniyo ugub daacadaa tahay bimidan lahayniyo daalacan ayaad tahay dood qaaliyaad tahay dun xariira baad tahay deeqaan laga dhargayniyo ugub daacadaa tahay annadaymo aragtida dawey adigan ban kugu diysadayo amal duujalaabtee haku daysta ay tahay hay kaa daaya ay tahay annadaymo aragtida dawey adigan ban kugu daysadayo amal duujalaabtee haku daysta ay tahay hay kaa daaya xareediyo damalada harkooday
doogya u baaday darmaan loo hanweeyay durdurada xareediyo damalada harkooday doogya u baaday darmaan loo hanweeyay baxay iyo daabac nuurayaa tahay la doondoonaya tahay isirdiin lebaa tahay degan dhaqan gudaydiyo quruxda intaa tahay ubax dayr tibaxay iyo daabac nuurayaa tahay la doondoonaya tahay isirdiin lebaa tahay degan dhaqan gudeediyo quruxda intaa tahay annadaymo aragtida dawey adiga unban kugu daysadayo amal doojalaabtee haku daysta ee tahay haykaadaya ee tahay madaymo aragtida dawey adiga unban kugu daysadayo amal doojalaabtee haku daysta ee tahay haykaadaya waa tahay ciid wanaagsan soo dhawow Saciid oo ciid wanaagsan waan dhawahay ciid wanaagsan ciid mubaarak alxamdulilah waagi ciid mubaarak dhigi jirtay ma xasuustaa hadda ilmeyna ciid mubaarak dhahay noo kasbaa inaga lacagta kuugu badneed aad ciid mubaarak ka heshatay waqtigii lacag ciid mubaarak lagu qaadanayo hay'adda u badato ilaa ma shilin ma soo la foolaaday idinka waa shilin aniga waxaan ka soo gaaray 500 waa tahay ciida kuugu farxad badneed wallaahi marba qofka bini aadamka haddii uu nabadgelyo iyo caafimaad haysto si wanaagsan iyo dawlad wanaagsan uu degan yahay ciidiisu waa xalaal runtii sanadahan dambe inta aan hadeer ilaa iyo dhowrkan sano dambe aad iyo aad ay ciidaha u wanaagsanayeen alxamdulilah waxaan ilaahay ka rajaynayaa tan iyo mid kasii qurux badan inuu ilaahay inteenaa nagu kulmiyo aamiin daawadayaashana maxaad leedahay daawashadaas waxaan leeyahay waa salaamantihiin ciid mubaarak sanad wanaagsan insha allah carafadana waa isku imaan doonaa xoogaa kadib haddii allah awoodda le uma ogolaado bas iyo barwaaq waa tahay aadaa umahadsan tahay iisii fadhiiso barnaamijkeenii qaybihii dhexe ayaynu isla soo gaarnay innagoo idinkugu talagalnay hees qaybaha dhexe aynu qaadi doonaan kooxda waa beri dhammaantooda waa tahay xamdi ciidda iyo nabadda allah heesta barnaamijka waxay la wada maxamed nuur shariifka hoolkana aynu ku qabanayno waa guryo samo hool barnaamijkeena ayaynu sii gudagalaynaa soo maha haa barnaamijkaasi gudagalaynaa balse waxaa jirtay hadda markii aad weydiinaysay Saciid Daawud lacagtii kugu ban ciid mubaaraka aad heshay la foola xagga wuxuu ka dhahay 5 shilin marka wax yar uu iloobay iyo asaga laftarkiisa waxa ka codsanaa inaad weydiisid lacagii ciidda markaas uu heli jiray iyo had dadku waxay leeyihiin wuu duqo la foola halku yarana si markaas wixii halkaas uu ka sheegay inuu halkan ka sheego iyo ciidda la foola soo dhaw ko waxaan jeclaan lahayn xataa horta 5 shilin iyo dad baa garanaynin oo ani aan ka mid ahay inaan arkay maahan muuqaal ahaan ama sawir ahaan aan ku arkay muuqaal ahaan iyo sawir ahaan inaan ku arkay maahan weli gacanteedu ma saarin laakiin 5 shilin iyo maxay kaga duwan tahay marka lacagta caadiga 5 shilin lacag fara badan maalinta la siiyo erkay dhulka wareegi jiray marka waxay wax aad u qaaliya runtii xilli fog ma ahayn runtii 8 meeyadii 5 shilin haddii la helo bismillah adaa waddanka u sarreeyo
si wanaagsan taajira tahay si fiican marka dabcan caawa waxaan rabaa halkan inaan ugu hambaliyo dhammaan ummadda muslimiinta meel walba ay joogaan gaar ahaan ummadda Soomaaliyeed waxaan sidoo kale hambaliyo leeyahay dhammaan asxaabtayda gobolada Waaberi oo ah gruupka aan ka tirsanahay waxaa kaloo sidoo kale aan salaamayaa xaaskayga aan jeclahay Xamdi Cawil iyo carruurtayda iyo dhammaan inta muuqayga ee magacayga taqaan waxaan leeyahay waa salaamantihiin waxaan sidoo kale salaamay gudoomiyaashayda agaasimahayga maxamed xasan barow abwaan salaad iyo dhammaan positionka gadaashayda taagan waxaan leeyahay ciid mubaarak ciid mubaarak maadaama ciido badanna soo joogta hadduu eebara alle ka noqdane noo saamaxa dhammaanteena ciido kale sii joogi doono sheekooyinka ku gadaaman ama koo xiise geliya oo ciidaha ah anagii daawadayaasha mid ma nala wadaagi kartaa maxamed shariifna uu ku baxsanayaa su-aaluhu wata runtii ciidaha way kala duwan yihiin mar haddii aad wasuusa ee sheegeen haddii aad nabadgelyo ku iido waa alxamdulilah iyo caafimaad hore way jirtay ciiduhu aad u qurux badnaayeen oo biiqbiiqle iyo wax naloo soo gedi jiray hadda laakiin ciyaalka waxaa loo kastagada qoryo iyo bastoolado annaga ma aqoon jirin wagaas marka ilaahay waddanka nabad ha nooga dhiga insha allah waa tahay la foole dagaaladii dalka ka dhacaa keenay qoryahaasi adi dhinaca qurbaha soo martay bal dhinacaas iyo sidai soomaalida ugu iidaan haye runtii markaad joogto bannaanka ciid qurux badan ma jirto ramadaanka laftigiisa inuu ramadaan yahay in kale shakiya kaa gelaayo ilaa waxaa joogtaa dhul gaalan leedahay joogtaa aadaana maqlaysid in la soomaya in kale ma garanaysid markaa laakiin dhulkaaga joogto waxaa dareemaysaa wax aad u weyn oo aad u qiimo badan runtii marka ilaahay ummadda ha isku soo duman leh waa tahay aad iyo aad ayuu mahadsan yahay maxamed xuseen lafoole iyo sheekadii gaabneed ee markaasi ciidda ugu talagalay xamdi barnaamijkeena maxaa inoo raaci doonaa waa tahay barnaamijka waxaa noo xigi doonta waxa wacayaan Nasra Baashra se barnaamijka iyadana heesaha ay ugu talagashay halkan ugu soo bandhigto ay nagula ciido anaga iyo daawadayaasha Nasra Baashra iyadu qudeedu waxay soo jeedaa qoys faneed Allah hadeeste waa sax aabeeda wuxuu ahaa Umar Baashra oo banaadir iyo heesaha Soomaaliga gobolada Waaberi ka mid tahay xaajigeedana waa Waaberi ayadu waa Waaberi sheekada adaa noo qaabilsan waa Waaberi asali adaa waqti jirtay soo dhawo Nasra heestan ugu talagashay magaciisa andhawa walaashays waxaa la yiraahdaa magaciisa kaftan waa tahay Nasra idinla kaftamaysa daawasho can ciid wanaagsan kullu caam wa antum bikhair
isleeyahay waxbaa ka dhaca halkaasaan kaga imaanay heesta ee ku luuqeynaysay nasra baashraxa nasra soo dhawow ciid wanaagsan wanaagsana baa koley ciido badanna waa soo ciiday hadduu eebbo ku dhaafana waa ciidi doontaa balse maxaan ugu soo kordhinaa halilabo waa taa heestii hadda noo qaaday horta heesta magaceed heeska magaceeda waxaa waaye kaftan eryada waxaa sameeyey abwaan mahadide laxankana waxaa sameeyey xaajigeega siciid daawud cali masxaf misigana bashiir hanuuniye aad iyo aad waxaana dib u tumay kooxda caawa noo joogta ee muusikiistayaasha dhammaystiran ee hobolada waaberi adna waa noo qaaday aada umahadsan tahay adna ciid wanaagsan ciid wanaagsan xamdi heesihii keliga waa ad markan waxaa filaa inaad noo wado barnaamijka mar haddii dhextaan la yiraahdana waxaa loo baahan yahay hees jamca soo maaha alla maanta ayaanta haddii aynu ku daahfurnay waxaan sugaynaa ciid iyo nabad iyo ciid markii laisku darane waa meel nabad ka jirto lagu ciido soo maaha heestan marka nabad ku ciida waan erayada heestan yaa alifay waxaa iskale erayada heestan khaliif axmed xirsi oo khaliif axmed cilmi ayaa erada leh khaliif axmed cilmi ayaa erayada iskale waxaana ku luuqeynaya ama wada qaadaya cashakiin cilmi xaashi farxiye xalan khaliif iyo cabdiraxmaan shareeco ha ka tagin laxankana salaad ayaa isagana iska leh salaad cabdulle gudoomiyaha kooxda waaberi haddaba waxaan ku soo dhaweynaynaa caashakiin iyo weliba aadan maxamed ciise farxiye xalan iyo sidoo kale shareeco muusigii waa hobolada waaberi aadan maxamed ciise ka mid ah kooxda ee qaadi doontay heesta ciida ama nabad ku ciida soo dhawaada dhammaantiina maslaxa idinku soo dhaweynaynaa daawadayaashana waxaan leenahay ciid wanaagsan nabad ku ciida kuna soo dhawaada heesta ciida iyo nabadda
calaamadaysan casiso wallow cibaadada baryada kanu xabanayn keli caabudno alla caadilo cirka iyo dhulkaba nabad nooga curi casiso wallow cibaadada baryada kanu xabanayn keli caabudno alla caadilo cirka iyo dhulkaba nabad nooga curi waa maalin ciido carfiyo udgoonlo dharka caynba caynka quruxdiyo cajiibka culumadu takbiirtiyo camireen salaade waa maalin ciido carfiyo udgoonlo dharka caynba caynka quruxdiyo cajiibka culumadu takbiirtiyo camireen salaade xasiiso wallo cibaadada baryada kanu cabanayeen kali caabudno alla caadilo cirka iyo dhulkaba nabad nooga curi xasiiso wallo cibaadada baryada kanu cabanayeen kali caabudno alla caadilo cirka iyo dhulkaba nabad nooga curi waa maalin ciido faralkii cuslaaye nafta lagu carbinayo camal suban kuwii falay rabbi ugu abaal celin janno lagu casuume waa maalin ciido faralkii cuslaaye nafta lagu carbinayo camal suban kuwii falay rabbi ugu abaal celin janno lagu casuume casiso wallow cibaadada baryada kanu cabanayeen keli caabudno alla caadilo cirka iyo dhulkaba nabad nooga curi casiso wallow cibaadada baryada kanu cabanayeen keli caabudno alla caadilo cirka iyo dhulkaba nabad nooga curi 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 aamiin aamiin aa raacinaya allah caadilow cirka iyo dhulkaba nabad nooga curi wallaahi hees cajiib ah oo cusub oo markaasi ciidday u diyaariyeen gobollada waaberi ayay ahayd ereyadiina khaliif ayuu ahaa laxankiina salaad codadkana ها هي عاشقين علم حاشي آذن محمد عيسى haye فرحية حلنة أها. يسيبوا كلا شريعة aad ayuu mahadsan yihiin ودينا كستمانتو aad ayuu mahadsan yihiin farsamadii iyo wuxuu isku darsaday inuu heesay qayb ka qaato Sii ku darso waa muusikiiste ma la socotaa أديات
haye maxaa inoo xigi farta ka doona xiran ama maqli jiro farta ka xiran hadda farta ka xiran waayo marka maxaa inoo xigi doona dhankii weli fanaaniinta afari ka qodnayn inagoo isku dheeli diri doono gabdho iyo walaal inkastoo gabdhihii ay nooga hartay farxiya xalane okay hadiya marka caashana way joogtaa waan isla wada joognaa barnaamijkii ciida ayaad fiirsanaysaan waxaynu u dabaaldegaynaa daawadayaal ciidul fidriga inagoo maalmahan idinkula ciideyno farxadda aad ku ciidaysaan waxaana ku sugannahay barnaamijka ku dubeynaa same hool waxaana halkan inoogu sugan muusikiistii kooxda waa beri oo dhammaystiran haye maxaa inoo xiga marka fanaanka inoogu yeera fanaaniintan waa kooxda waa beri oo idil markan waxaa soo qabanayaa cabdiraxmaan waaqi wacaya cabdiraxmaan soo dhawow waraysiga yar ee markaasi xamdi kula qayb qaadan doontana ku soo dhawow barnaamijka waa dhawaa soo dhawow cabdiraxmaan ciid wanaagsan ciidka waxaan u hayaa hees la yidhaahdo sagal aad iyo aad heesta sagal ammaani gabara u idisha haddii mar magacyadeeda lagu xusay heestan sagal yaa kuu sameeyey marka heesta waxaa sameeyey xasan cumar hoori muusigana qurin la ooda ka soo qaaday laxanka waa aniga waa gartay codkana waa adiga laakiin caawa waxay hor fadhiya dee hobladii waa beri oo barbarkayga fadhiya oo kale bashir xarbi baysaystaha bakaari waxoo kale aan salaamayaa oo sharaf iyo qadarin iga mudan walaalahay marka hore agaasimaha guud ee fanka iyo suugaanta master barrow aad baan u salaamayaa soo dhaweyntu soo dhaweeyey hambaliyaan ku leeyahay walaal waxaa ku sii xigoo kale odayaashaan hawsha kaga hadhin waa khaliif salaad iyo dee adigaba iyo tiifiga qaranka soomaaliya waa mahadsantahay cabdiraxmaan waa tahay daawadayaal kulla caam wa antum bikhayr barnaamijka ciidulfidriga aynu ugu dabaaldegaynay waxaan idinkaga dhex baxayaa markaana cabdiraxmaan iyo heestiisii isaga soo dhowow iyo daruuraha surmaweyda curato sahankiyo geediga sol barwaaqa lagu furay sagaal iyo daruuraha surmaweyda curato sahankiyo geediga sol barwaaqa lagu furay sidii ciyaartiyo sarka iyo dhaantada sacabla caweeyo saab lagu caweeyo sidii ciyaartiyo sarka iyo dhaantada sacabla caweeyo saab lagu caweeyo saaka daruurada jacaylkiisa dhigay
nimco iyo sareediyo saadaashiisu waa guul nimco iyo sareediyo saadaashiisu waa guul saaka daruurada jacaylkiisa dhigay nimco iyo sareediyo saadaashiisu waa guul nimco iyo sareediyo saadaashiisu waa guul lagu ducaystiyo suugaanta dahaqii dhaqaasoodintiisii seera loo malagiyey samaa lagu ducaystiyo suugaanta dahaqii dhaqaasoodintiisii seera loo malagiyey ana samaatoydun sadeer waxaan ku mahadsaa surba seegi mayne surba seegi mayne ana samaatoydun sadeer waxaan ku mahadsaa surba seegi mayne surba seegi mayne saaka daruurada jacaylkiisa dhigay nimco iyo sareediyo saadaashiisu waa guul nimco iyo sareediyo saadaashiisu waa guul saaka daruurada jacaylkiisa dhigay nimco iyo sareediyo saadaashiisu waa guul nimco iyo sareediyo saadaashiisu waa guul saaka daruurada jacaylkiisa dhigay nimco iyo sareediyo saadaashiisu waa guul nimco iyo sareediyo saadaashiisu waa guul waa tahay aad iyo aad ayuu mahadsan yahay cabdiraxmaan waaqle iyo heestii macaaneed markaasi uu halkan ku soo bandhigay xamdahaye sidaa hore u sheegto waaye cabdiraxmaan waaqle wuxuu noo qaadayay heestii sagal waan filayaa inaad ka wada hesheen daawadayaal ciid wanaagsan qaybihii dambe ee barnaamijka ciidulfidriga aan idinkula dabaaldegaynay daawadayaal ayaan isla soo gaarnay mar kaste bilaa dhammaad ilaa iyo dhexdhexaad maan intaba mahadcelin waxaa mudan guryasamo hool oo hoolkan quruxda badan ee barnaamijka aynu ku qabanayno ee taabagelinteeda leh
sidoo kale Ismaaciil Mukhtaar Oranjo oo barnaamijka mugga iyo miisaanka aan ka shaqeeyay intaba waa u mahad celinaynaa waa agaasimo ku-xigeenka TV-ga qaranka ahna tifaftiraha guud ee TV-ga qaranka marka Ismaaciil Mukhtaar Cumar Oranjo aad uu mahadsan yahay agaasimo ku-xigeenka ahna tifaftiraha guud dhanka fanaaniintana hartaynu aadaynaa markan adiga soo qabanayso waa tahay Farxi Xalan gabadha da'da yar ayaa inagu soo maqan farxiya soo dhawow hees ayay markaasi inoo qaadi doontaa heesta ayadaa weydiini doonaa magaceeda erayada iyadoo halkan ay diyaar ugu yihiin muusikiistaha hobolada waa beri farxiyo marka soo dhaweynaynaa farxiyo marka hore waxaad warbixin naga siisaa heestan erayadeeda waan dhowahay maxamed shariif heesta waxaa la yidhahdaa nasiib baan dhowrayaa waa tahay erayada heestan erayada waxaa iskale abwaan caaqilka laxanka waxaa iskale xanfar dawd xanfar codkana isweydiin male waa Farxi Xalan heesta marka maxay ku saabsan tahay ma hees wadaniya asxaacal awaa adiga hadibka ila rabe anigoon ku dhintayo oo waad igu wada dhantahay adiga hadibka ila rabe anigoon ku dhintayo oo waad igu wada dhantahay ida lilayo inta dina iga mare ada ida lilayo inta dina iga mare anigu wan kula dhaca anigu wan kula dhaca ida lilayo inta dina iga mare ada ida lilayo inta dina iga mare anigu wan kula dhaca anigu wan kula dhaca waxaan ku dabar jaban علي ليلك دحين المضغي دبنكيغا قويسو جعيلكو وددم iyo nasiib baan dhowrayaa jacaylko وددم iyo nasiib baan dhowrayaa waxaan ku dabar jaban علي ليلك دحين المضغي دبنكيغا قويسو جعيلكو وددم iyo nasiib baan dhowrayaa jacaylko وددم iyo nasiib baan dhowrayaa
dhaqanka rabe adigu wad dhumataayo oo waagad iga dhagalaadahay aniga dhaqanka rabe adigu wad dhumataayo oo waagad iga dhagalaadahay halkaadodha qaqdidiyo dhabadii aad si martaba halkaadu odha qaqdidiyo dhabadii aad si martaba adan cagtaha kula dhiga adan cagtaha kula dhiga kuma dhibo halkaadodha qaqdidiyo dhabadii aad si martaba halkaadodha qaqdidiyo dhabadii aad si martaba adan cagtaha kula dhiga adan cagtaha kula dhiga waxaan ku dhabar jabaan calay leylkii dhexe ilmadu dhabankayga qoyso jacaylko ku dhadhama iyo nasiiban dhowraya jacaylko ku dhadhama iyo nasiiban dhowraya dhabar jabaan calay leylkii dhexe ilmadu dhabankayga qoyso jacaylko ku dhadhama iyo nasiiban dhowraya jacaylko ku dhadhama iyo nasiiban dhowraya jacaylko ku dhadhama iyo nasiiban dhowraya waa tahay waxbaa ka dhacay jacaylkan dhowraya nasiibkan dhowraya jacaylku ku dhadhama iyo nasiibban dhowraya aad iyo aad farxiyo ciid wanaagsanaa ku leenahnay ciidan maxaa kuu qorsheysan ama intee kuu qorsheysan inaad ku ciidid u dalxiis tagtid intaba wallaahi bilaa ciidan waxaan jeclaan lahaa inaan ku dalxiiso kismaayo cadee xalo kismaayo dhaarsantaa miya حلو اسمعي في عيدة مدام عيدة حلوية بسكوت ايه تاي وهلي بجرين ما تصنتعي ايه بريسا قبل دي برامج كانوا سلسو قارني مركنا حواعيا آذن محمد عيسى سي برامج كأوغنا والله خيب خاصو قبل برامج كا حمدي آذن هرتا أساقنا لالوا بري يو أبياشي وبري متكمدة محمد عيسى اللي جري oo muusikiisa caan ah ayaa dhalay marka asagana waa qayb ka mid ah dhalinyaradii aan ku magacaabaynay aabbayaashooda ayaa muusikiista maxamed ciise allah u naxariistay hobolada waa beri ayuu ka mid ah marka aadan sidaas uu la soco wixii su'aalaha iyo siduu u ciiday iyo markuu wadada soo socdayna adaan ku daayay su'aalaha gadaal inoo noqon doontaa waa maxadsan tahay maxamed shariifka oo barnaamijkii la daadihinaya balse soo dhawow heesta magaceeda ereyada qofka iskala iyo laxan heesta waxaa la dhahaa bilan ereyada waxaa sameeyey mustafa maxamed xaaji awgeedow cimraha horey waxaa u tumeeyey cabdicasiis alcazal laakiin caawa waxaan ku faraxsanahay inay dhabarkayga taagan yihiin goboladii qaranka ee waa beri gacanta fududna ay ku tumayaan aad iyo aad waa tahay heestaasaa idinkaga dhex baxa ee bilan iyo aadan daawasho wacan ciid wanaagsan
barashadii daraan ugu bogaay bidhaantaada aragga waa i bishaare bidhaantaada aragga waa i bishaare barashadii daraan barashadii daraan ugu bogaay bidhaantaada aragga waa i bishaare bidhaantaada aragga waa i bishaare bilicdii haweentii loo boqraday quruxda basarkiyo wanaagan bilad looga dhigay bilicdii haweentii loo boqraday quruxda basarkiyo wanaagan bilad looga dhigay bilanay walaal been haddaan la sheegayn adan ku bukaaye cishqigaad igu beegtaa igu sii ballaadhe kaalay iga bogsi bilanay walaal been haddaan la sheegayn adan ku bukaaye cishqigaad igu beegtaa igu sii ballaadhe kaalay iga bogsi jeclaay boqoradan jeclaay bilan adiga weeyaan midka aad ku nooshahay yaan beegsan doonaa midka aad ku nooshahay yaan beegsan doonaa boqoradan jeclaay boqoradan jeclaay bilan adiga weeyaan midka aad ku nooshahay yaan beegsan doonaa midka aad ku nooshahay yaan beegsan doonaa balan waxaan ku marayaa inaan beed xalaala bilanay aan kula dego nabad ku barisanaa balan waxaan ku marayaa inaan beed xalaala bilanay aan kula dego nabad ku barisanaa bilanay walaal been haddaan la sheegayn adan ku bukaaye cishqigaad igu beegtaa igu sii ballaadhe kaalay iga bogsi bilanay walaal been haddaan la sheegayn adan ku bukaaye cishqigaad igu beegtaa igu sii ballaadhe macaan iga bogsi aadan nala joog waa tahay aadan maxamed ciise aadan bal ciid wanaagsan marka hore wanaagsanoo wacan kullu caam wa antum bilkhayr
aadan saakay markaas soo baxday oo salaadii markaasi la dukaday intaas soo socotay dhalinyarada iyo ciidda iyo farxadda bal ka waran wallaahi maasha allah ciidan ciidii hore inay ka duwantaa moodaa dadka aad ay u faraxsan yihiin magaaladii waa nabadgelyo alxamdulilah ma soo xasuustay markaa yareed oo dabagaabka iyo bistooladii iyo buufinkii xoogay xasuus waa gasho waxaa waaye markaa arkay caruur bistoolada iyo wax wato bistooladii aan soo dhaafaan dib u xasuusta aad ayaad u mahadsan tahay adigaa mudan adigaa mudan xamdi markana waa gabagabadii barnaamijka fanaaniintii weyneyd kuwii dhexe iyo kuwii daba heesihii ciidda halkan ay ku soo bandhigeen muusikiistii hobolada waa berina bal gabagabada anigu kugu wareejinayo la soo gaaray xamdi haye waa taada u mahadsantahay maxamed nuur shariifka guud ahaan barnaamijkii aynu ugu dabaaldegayna ciidulfidriga labadeeda maalin aan halkan kusoo gabagabeynayna anagoo u mahad celinayno maamulka guryo sama hool ay ugu horeeyaan sidoo kaleetana isku duwaha iyo bilowga barnaamijkan soo bilowday kana shaqaynayay agaasimo ku-xigeenka tv-ga qaranka ahna tifaftiraha guud ee telefishinka qaranka soomaaliyeed ismaaciil mukhtaar cumar oronje sidoo kale waxaan u mahad celinaynaa agaasimayaashii la shaqeeyo oo kale ahaa maxamed xasan barrow maxamed wardi iyo sidoo kaleete axmed nuurudiin caalin madaxa wax soo saarka cabdirashiid nuur xuseen iyo madaxa barnaamijyada Ilyas iyo Salaad Cabdulla oo ah gudoomiyaha Waaberi kale agaasimayaasha in la wada fahmaa rajayna inta agaasime ah waa Ismaaciil Mukhtaar Cumar Oranjo oo ugu horeeya agaasimaha telefishinka qaranka Maxamed Xasan Barrow oo ah agaasimaha maaliyadda tiyaatarka ama madadaalada qaranka Maxamed Wardi iyo sidoo kale Axmed Nuurudiin Caalin agaasimaha wasaaradda warfaafinta gaar ahaan qaybta tiknoolajiyada adoo mahadsan dhinaca kale dhinaca kaamirooyinka oo markaas inoo hogaaminayo injineer kaamirooyinkan waan u imaan doonaa he kama tagine waa beriya tirada ka badan soo maaha si wanaagsan marka waa beriya isku duuban dhammaantood oo fanaaniin waa beriya isku duuban dhammaantood oo fanaaniin leh oo madax leh oo musiishiyaano leh oo kabaniiste leh oo bateri leh dhammaantood waxaan leeyahay waa mahadsantihiin sida quruxda badan ee barnaamijka uga qayb qaadateen dhanka telefishinka qaranka Soomaaliyeedna waxa uu mahad celinayaa dhammaan muuqaal duubihii ay ugu horeeyaan Cabdirashiid Nuur Xuseen Axmed Awees Cabdiqadar Cabdullaahi Catoosh Cabdi Aadan iyo Maxamed Jawhar dhammaantiina waa mahadsantihiin Maxamed Cabdi Caraaye ayaa qayb ka ah dadka muuqaal duubaha muuqaalkan quruxda badan ee ciidana inoo duubay dhammaanteena oo isku duuban waxaan idin dhahaynaa ciid wanaagsan dhammaanteena madax macalaa iyo shaqaalihii warbaahinta dowladda oo ka qayb qaatay barnaamijkana xamdi ha ka tagin waxaa si wada jira u daadeynayay maxamed nuur shariifka iyo waliba xalwadii aa naga tambadatano iyo waliba walaashay xamdi waa tahay dhammaanteena isku duuban ciid wanaagsan kulla caam wa antum bikhayr allamaanta ayaanta iyo iidda wanaagsan ilaaheena siiyey isaga ku abaale ilaaheena siiyey isaga ku abaale